Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa adduunka oo idil tartanka uu ka yahay mid ka caan ah waxaana labadan xidig ay yihiin mar walba laba ciyaaryahan oo isbarbardhig lagu sameeyo dhanka ciyaarista. Labada ciyaaryahan ayaa midka kale sanad walba uu yahay midka uu loolanka uu kula jiro sidoo abaalmarinada kaga hormari lahaa, balse warbixinteena waxay quseynaysaa yaa labada ciyaaryahan marka la isbarbardhigo xagga lacagaha ku hormarsan. yayse kula tahay dhageystay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi in uu yahay mid ka taajirsan ama ka hanti badan ciyaaryahanka kale. Cristiano Ronaldo waxa uu ka soo ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska, sidoo kale waxa uu u soo guuray wadanka Isbaanishka oo uu ahaa halkii loolankii ugu adkaa labadaas ciyaaryahan dhanka iyo kubadda cagta ay ku dhex martay. Balse Cristiano Ronaldo ayaa hadda ah mid ka tirsan kooxda kubadda cagta Juventus oo sidaasi uu ku noqonayo horyaalkiisii saddexaad uu ciyaaryahankan uu ka mid noqdo oo heer caalami ah, inkastoo horey yaraantiisa horyaalka wadankiisa Portuguese uu uga soo ciyaaray. Dhanka kale Lionel Messi ayaa caruurnimadiisii ilaa iyo hadda ka ciyaara horyaalka dalkaasi Isbaanishka oo kaliya kooxda kubadda cagta Barcelona ay tahay kooxdii uu ku soo indhaqaaday. Hadda waxaan isbarbardhig ku sameynaynaa dhanka mushaaraadka, maalgashiga iyo sidoo kale heshiisyada caalamiga ah ee xidigahani ay ku jiraan cidda ku hantida badan. Lionel Messi ayaa inta badan hela dakhli fara badan, sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaanan ka liidan, sidaas si la mid ah xidigahan ayaa qarash gareeya lacag fara badan. 2019 majalada kala duwan ayaa isbarbardhig ku sameeyay dhanka dhaqaalaha labadaas ciyaaryahan cidda ku sareysa mushaaraadka, sidoo kale dakliyada iyo heshiisyada kale ee kooxuhu ka soo galaan. Barcelona ayaa wiilka reer Argentine qiimo ahaan u siisa sanadii 92 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Dhanka kale Cristiano Ronaldo isaguna sidoo kale ma xuma oo waxa uu kooxdiisa kubadda cagta Juventus ka hantaa heshiiska uu hadda kula jiro lacag gaaraya ilaa 65 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka, taa oo ka dhigan in Cristiano Ronaldo lagu garaacay dhanka mushaaraadka uu Lionel Messi ka mushaar sareeyo dhanka dhaqaalaha sanadlaha ah. Dhanka kale waxaa jira in heshiisyo kale ay ku jiraan xidigahani oo aanan ahayn kooxahooda. Lionel Messi ayaa qandaraasyo kala duwan ku jira halka sidoo kale Cristiano Ronaldo uu shirkado waaweyn qandaraas kula jiro. sanadii u dambeysay Messi ayaa qandaraaska uu kula jiro shirkadaha qaarkood ka hantay mushaaraad ama lacag gaaraya 35 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah, balse Cristiano Ronaldo ayaa isagana dhankiisa dab yar aan shidayn. sanada 2019 dakhli ahaan waxa uu soo xarootay 44 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka, taa oo ka dhigan in Cristiano Ronaldo xagga mushaaraadka hadii looga adkaaday. dhanka kale heshiiska sanadlaha ah ee shirkadaha gaar ka soo gala uu ciyaaryahankani uu ku noqday mid ku sareeya. dhanka social media Cristiano Ronaldo waa xidiga kubadda cagta dheere ee ugu horeeyay ee maalgelin ka hela, isaga oo ay ka dhigan tahay in bartiisa Instagram-ka mar walba uu muuqaal ama qoraal uu soo post gareeyay ay kaga dhigan tahay in qarashaad uu ka helayo. dhankaasi waxa ay ka dhignaan doontaa in barbardhac ay sidaasi ay ku noqdeen maadaama dhanka mushaaraadka uu ku badnaa Lionel Messi. dhanka kale labada ciyaaryahan marka loo eego hantida qaaska ah ay leeyihiin waxaa ka mid ah in guryo qurux badan ay ku kala leeyihiin wadamada hadda ay ku kala sugan yihiin, sidoo kale wadamo gaar ah iyo meelo gaar ah loo dalxiis tago. Cristiano Ronaldo ayaa hanti fara badan ku leh wadankiisa hooyo ee Portugal, sidoo kalena maalgashiyo ku sameeyay meelo kala duwan. 47 milyan ayaa lagu qiimeeyaa qiimaha hantida mugurtada ah oo Cristiano Ronaldo maalgelinta ku sameeyay, iyadoo ay ka mid tahay guriga hadda uu Turin ka degan yahay oo uu dhawaantan iibsaday. apartmento ama guryaha qaybta loo yaqaan isku xiran ayuu magaalada New York waxa uu ka iibsaday daarta ugu qaalisan uu leeyahay madaxweynaha hadda wadankaasi Mareykanka ah ee Trump Tower lagu magacaabo. si lamid ah waxaa ka mid ah hantida Isbaanishka u taala Cristiano Ronaldo 2.3 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah, iyadoo ay isugu jiraan ayaa yiri baawur iyo sidoo kale hantiyo kala duwan. Messi ayaa leh baawurka lagu magacaabo Ferrari, Mercedes iyo sidoo kale gawaari kale oo kuwa raaxada ah, waxaana qiimo ahaan lagu qiimeeyaa 3.5 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Cristiano Ronaldo ayaa sanadan waxa uu iibsaday gaari qaali ah isagoo ku dhawaad ka bixiyay 3.6 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah, waana gaariga caanka ah uu aadka ugu jecel yahay Cristiano Ronaldo. inta badan waxa uu iibsadaa gawaarida ugu qaalisan ee markaasi shirkaduhu ay ku sameeyaan tijaabooyinka sida Bugatti,
Lamborghini iyo sidoo kale gaariga lagu magacaabo Ferrari. si lamida Cristiano Ronaldo ayaa sanadan gudaheeda waxa uu qarash gareeyay dooni lacagteeda ay ku kacisay 19 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah isagoona doonidaasi ay ahayd ayaa la yiri mid kamid ah kuwa ugu qaalisan oo xidig iyo sidoo kale ciyaaryahan uu ku aado dalxiis balse labada ciyaaryahan ayaa mar walba marka loo eego dhanka qarashaadka aanan ahayn laba ciyaaryahan oo kala dhaca mid walba waxa uu ku jiraa shirkad ama heshiis gaar ah sidoo kale waxa uu sameeyaa maalgelin kala duwan sanadii 2018 hantidiisa guud ahaan Cristiano Ronaldo waxa lagu qiimeeyay 450 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah taa ka dhigan in uu yahay mid kamid ah hantilayaasha adduunka ugu qaalisan Messi ayaa isna sidoo kale dakhli fara badan uu soo galay walow dakhliga Cristiano Ronaldo lagu qiimeeyay in uu ka badan yahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Lionel Messi lacag gaaraysa 50 milyan balse sanadan ayaa la cadeeyay in mar kale Cristiano Ronaldo uu hore u sii hogaaminayo dhanka dhaqaalaha labada ciyaaryahan marka la is barbar dhigo Leo Messi ayaa ku awood badan dhanka musharaadka kooxda kubadda cagta ee Barcelona balse dhanka maalgelinayaasha banaanka ah ayuu Cristiano Ronaldo kaga xoogan yahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Lionel Messi sanadii la soo dhaafay ayaa farqiga labada ciyaaryahan lagu tilmaamay lacagahooda u dhaxeeya inay ahayd 50 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka oo Cristiano Ronaldo Leo Messi dheeraa waxaan arki doonaa sanadan gabagabada ah iyo sanada soo aadan bilowgeeda hore marka la sameeyo isku celcelin ahaan barbardhiga dhaqaalaha u soo xarooda labada ciyaaryahan kee noqon doona midka ku adkaada